go'aanka iyo qaabka loo qaato iyo waxyaabaha uu nolosha saameynta uu ku leeyahay iyo bal hadda dhaqankii hore ee Soomaalidu go'aanka waxa uu ka yiri waan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala waxa kale oo ka hadli doonaa waxyaabaha ummadda horumarkeeda weeqaya ee midnimadeeda weeqaya ee mustaqbal wanaagsan inay ummaddu yeelato weeqaya waxyaabaha kamida qabyaalada kamida eexda kamida dulmiga kamida cadaalad darrada kamida social media oo si negative loo adeegsado kamida intaana insha Allah ta'ala waxaan wax yar ka oran doonaa midba wax yar ugu horeyn waa maxay go'aan waa xaalad in wax laga bedelay waajibka waxa go'aanka laga qaatay waa shay in wax laga bedelay waajibka waa mowqif qeexaya amba waa gaab amba waa maxaa la yiraahdaa daliil u dhaxaysa xaalad u dhaxaysa tay tahay iyo tay waajibka ku ahay silsilada isku xidhaan bakaabada loogu kala gudbo weeye ta waajibka iyo tay ahaan lahayd decision waxa yiraahdaan gaaladu decision amba go'aanku it is a process of choosing xulasha ku jirta haddana odayada markay sheekaysanayaan ma haddaynu taa yeelo mise haddaynu taa yeelo ka kale loo sheekaynaya odhanaya midba marka go'aanka la qaadanayo haddana maxaa ku lifaaqan xulasha ku lifaaqan xiridoodana Allah u naxariistee ninba nolosha tuu doortay uu dayday leeyahay ninba xoolo dhaqata ninba beeraley ninba biraha iyo farsamo yaqaana ninba mas'uuliyad iyo cilmi baaris iyo dhakhtarnimo ku shaqeeya midba cilmi baaris ku shaqeeya midba culimaa u diina midba dhaqan ku shaqeeya midba wax ku shaqeeya decision waxa weeye from multiple options